shirkadda caalamiga ee tababarada ee Hasin Consulting ayaa aqoon kororsi socday muddo 3 casho ah u soo gabagabaysay dufcaddii saddexaad. Tababarkan oo ku saabsanaa hogaaminta wanaagsan iyo sidoo kale maareynta qorshaha nololeed mustaqbalka oo ay bixinaysay shirkadda Hasin Consulting ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah ganacsatada dalka, xubno ka tirsan laamaha dawladda, xisbiyada qaranka ee kulmiye iyo wadani, hay'adaha aan dawliga ahayn, qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay dalka iyo sidoo kale xubno kale oo ka socda gobolada awdal iyo togdheer. Ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Gaas oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Hasin Consulting. saddexdii maalmood labadii maalmood ee hore waxaynu awoodda saarnay cilmiga horumarinta xirfadaha hogaamintu waa wax aynu uga baahannahay heer kasta oo nolosha ka mid ah. maalintii ugu dambeysay oo maanta ahna halkan waxaynu kala tegaynaa qof kasta inuu samaystay shahaado uu naftiisa siiyey oo uu ku dabageli doono inta noloshiisa ka hadhay. dhan kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay dhammaan xubnihii kala duwan ee ka qayb qaadanaya tababarkan, waxaana sheegeen dhammaantood inay ka faa'iidaysteen islamarkaana ay ballan qaadayaan inay noloshooda iyo ta bulshadoodaba ku dabaqi doonaan aqoontii ay barteen, islamarkaana si weyn ay uga bedeli doonaan xarumaha ay ka socdaan. waa u mahadnaqaya Hasin for Leadership oo iyadu barnaamijkan soo qaban qaabisay. marka wuxuun baan u arkayaa barbilow fiican iyo duruus dhaxalkeeda wadata. waxyaabahan ka faa'iidna runtii waxa ka mid ah sidii dadkan aan la shaqeyn oo la dhaqmi lahayn. waxa ugu badan aanu ka faa'iidnay waxay ahayd hogaamiyaha wanaagsan wax laga doonayo. runtii tababarka Hasin ee hogaaminta iyo xirfadda hogaaminta in badan baan ku naawilayay oo labada qaybood hore way suurtagal weeyeen inaan ka qayb galo. fursad waxaan helay inaan tan ka soo qayb galo. wax badanna waan ka faa'iiday. fursad bay tahay inaan ka qayb galo trainingkan ay bixinayso shirkadda Hasin kana ku saabsan leadershipka. runtii tababarka si fiican baan uga faa'iidnay. marka shanta qaybood laga mid walba qaab annaga u baahnaan oo inuu qofku isku develop gareeyo. waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Hasin waxaan u ballan qaadaya inay tababaro intaa ka badan aanu ka dalbano insha Allah taala ama shirkadda gudaheeda ha noqoto ama kanoo kale ha noqoto. wallahi tababarkan aad buu noo anfacay, wuxuu noo anfacay shakhsiyan qaab hogaamiyeedkayga ayuu wax ka bedelay. runtii waxaanu ka faa'iidnay wax fara badan. dadku waxay had iyo jeer dadka ku wareeriyaan inay gaale iyo dad kale ay tusaale kaaga dhigaan, laakiin Hasin Consulting waxay had iyo jeer ku dadaalayeen inay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye dadkii wanaagsanaa muslimiinta ahaa ay mar kastaba tusaale inooga dhigaan. waxaanu ka baranay xirfado gaara, cashiro kala duwan, marka yoolkayga ayuu ka dhigay mid aan taargetkayga saareen. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa labada macallin tababarkana siinayay Cabdiraxmaan Gaas iyo macallin Hasin. wax badan baan ka faa'iidnay runtii oo aanu shirkadaha iyaga iyo naftaydaba ku dabaqi doono. tababarkaas waa tababar aad u faa'iido badnaa. aanu waxyaalo badan ka faa'iidnay insha Allah kuna dabaq doono nolosheeda. aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Hasin oo noo qabatay tababarkan faa'iidada leh. waxaan runtii ku faraxsanahay tababarkan Hasin Consulting ay noo soo qaban qaabisay ee ah horumarinta xirfadda hogaaminta. runtii waan uga mahadnaqaynaa Hasin Consulting khaasatan Gaas iyo Buraalo oo runtii cashara waxtar leh ka nagu siiyay. intii tababarkan socday ayaa macallimiinta Hasin Consulting waxay halkaasi ku soo bandhigeen casharo kala duwan oo dhammaantood la xiriira aqoonta hogaaminta toosan iyo sidoo kale maareynta qorshaha nololeed ee mustaqbalka. waxaana macallimiintu halkaasi ku weydiiyeen ardayda su'aalo kala duwan iyagoo ka jawaabay islamarkaana soo bandhigay sida ay u fahmeen aqoontii ay qaateen intii uu socday seminaarkani muddada 3 cisho ah. ugu dambeyntiina maamulka shirkadda Hasin Consulting ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey dhammaan xubnihii ka faa'iidaystay tababarkan socday muddada 3 cisho. Cabdulqaadir Code, Home Cable TV, Hargeysa.